بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسن داودياشا قيمها ايا قدرين تلهو كسو دوادا برنامج قارا اسلا مركانا ما انت مرتي انو يهين لبدا فنان عام بحي او كلا قليف عثمان عبدي او لوي خان سيد خليفة يا بشير علي حسين او لبدا بكتر سنة كوحدي وساردا وحبرشada Soomaaliyeed isla markaana ku caan ahayd kooxdii iftin labadaba waxa ay joogan magaalada Toronto ee gobolkan Ontario waxa filayaa in dadweynaha magaalada Toronto waxa ay caan ku yihiin oo ay wadamada kale kaga caan bixeen soo dhaweynta fanaaniinta Soomaaliyeed halkan waxay hooy u tahay fanaanin aad u fara badan oo wali heer qaran oo aad istaqaanana way aad soo wada qaadateen waxaan filayaa in magaalada si weyn igula soo dhaweey waad mahadsantahay inaad ka dhawaajiso arrinka ayada ah waxaan aad iyo aad jeclahay in aan opportunity-gan ku xuso soo dhaweynta qaaliga ah oo qiimaha leh ee lagu soo dhaweeyay halkan dhammaan dadka bulshooyinka Soomaaliyeed ee reer Toronto si aad iyo aad ay noo soo dhaweeyeen waxa jirta Said Khalifa qafka marka uu fanka ku soo biiray inuu wax aad u fara badan oo waalidkiis kala kulmo inta aan su'aasha u galin ka hor adiga halkee baad ku dhalatay aniga horta waxaan ahay nin reer Beledweyne ah waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne xerada militariga ee la yiraahdo Lama Galay ee ku taala magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan ayaan ku dhashay muxuu ahay geedaha dheer baarta la yiraahdo Beledweyne ku maqasheen ayaa ii ehla Bashir waxaad ka mid tahay fanaaniintii hore ee dalka Soomaaliya waqti badanna waad soo joogtay waxyaabo badan ayaan ku weydiin doonaa caawa oo ku saabsan sooyaalkaagii taariikheed dabcan waxaan filayaa haddii la bilaabo ilaa berri inaysan dhamaanin dabcan marka hore waxaan ku weydiin su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay waxay tahay qofba meel buu ka bilaabaa halkee baad horta ku dhalatay aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku barbaaray magaalada Muqdisho barnaamijkan heesaha iyo hiwaayadda aniga korkayga muxuu ahaa ku milneedna waxay soo ifbaxday sidaan ku sheegay 1972 waa tahay qafka marka uu fanka soo galay waxa uu la kulmaa waxyaabo aad u fara badan in waalidkii uu dhibaato kala kulmo in dadka eheladiisa inay soo saaraan culays aad u fog ma jirtaa wax dhibaatooyin ah oo markaad fanka soo gashay ka soo gaaray dhanka waalidka way jiraan way dhacdaa laakiin aniga waalidkay wax dhibaato ah oo aan kala kulmay dhinaca fanka haba yaraatee ma jirto waa tahay Bashir waxaad qaaday heesa aad u fara badan oo midba duruuc gooni ah xambaarsan amba ujeedooyin gooni ah heesaha aad qaaday waxaa ka mid ah heesa aad u fara badan sida Jirjiroole Saacdiya Maryanay ya heesta midnimo la yiraahdo oo sanadan daba aad ku qaaday qurbaha marka aad soo gaartay bal waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo heestii kugu horeysay oo aad qaaday inaad caawa daawadayaasha aad u sheegtid dabcan kulli qofkii xilligaas joogay 27kii ama xiiseynayay barnaamijkii heesaha hirgalay taariikh ahaan wuu la socdaa aniga waxa igu horeysay hees wadani ah oo la yiraahdo dhalinyaro nasiib daro dhalinyaro hadda kuma hayo halkan oo dadkii ma tusi karo laakiin intooda badan idaacadaha ayay ka dhageysan jireen